والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان waxaan doonayaa inaan ku qabto war yar oo kooban oo bariyaha maalmahan bay igu jiray waa saddex qodob oo ka kooban yahay arrintan ka hadlaya mid waxa weeyaan arrinta ugu muhiimsan ee number 1 kan ka hadlaya waxa weeye bankiyadan ribada ah ee la doonayo in baarlamaanka la mariyo runtii arrintaasi bulshadu aad bay ula yaabtay sababtu ay tahay waxa weeye inagu dad islaamadeena anigu diinta nin xariifka ah oo baliiq ah oo muftiyo aad u yaqaanay laakiin Soomaalidu waxay tiraa geerar waa halku dhig waxa kaliya anigu qaatay xadiis maskaxdayda ku soo noqnoqday markaan arrintan maqlay isagana eegay anoon meel kale wax ka yeelin xadiiskaas wuxuu rasuulku ku yiri sallallahu alayhi wasallam ribada waxay la dambi tahay 3 dambi oo ka ugu yari uu yahay hooyadaayo aad guursato ama ka sanaysato bas ku mid ay la dambitay waxaan dabadeedna idhi warniyo nimanka waaweyn islaama arrintaana og haddana kaba hadlaya waanu yani damirkaygu qaadi waayay arrintaas waa arrin aad u foolxun baarlamaanka anigu maanta dhaweeytay ay wada hadlayeen waan tagnay waxaan horta aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo gudoomiyaha cirana aan maqlay isagoo ka hadlayo oo leh waxaas muddo horena way yaaleen wixii sharciga islaamka wixii dastuurka diidanna lama qaadanayo gudoomiye ku-xigeenkana waabaan aragnay wuxuu yiri waxaan culimada kala tashan ma qaadanayno laakiin waxa arkay rag badan oo baarlamaanka oo waaweyn oo qaylinayay oo doonayay halka in la ansixiyo marka ilaahay waxaan leeyahay ilaahayna ka baqa dawladana waxaan leeyahay culimadu wadankeena halkay kaga jirto waqti wax kasta oo aynu qabanayno waa u priority oo iyaga lambar 1 ka waynu ognahay maanta gudida abaaraha waxay u badan tahay culimada sharafta iyo karaamada ilaahay siiyay waxay wax ku yihiin waxa weydiinta islaamka marka haddaad culimada la tashan weydaan oo dastuurkii ay idinku gacantiina ku sameeyeen qodobka shanaad dhigayay inaan waxaan qodob diinta islaamka waafaqsanayn inaan laba hor keenin oo aan xeerba noqonayn sabab loo keeno anigu ma garanayo waxaan aad ula sii yaabay waqtigiin ku jirnaa waa jiilaal halkii ugu adkeyd weey dadkeena abaartii iyo mushkiladda haysata waa ogtiin halkii aynu ku mashquulilayn inaynu masaajidada galno inaynu isa saamaxno inaynu alla ka cabsano inaynu ilaahay baranayno roob keeno wax ilaahay ka cadhaysiinayo wixii ugu waaweynaa inaynu meesha soo dhigno wal maxay noqonaysaa arrintaas dadku xitaa haduu dharigsan iyo kibirsan iyo waxba la yiraahdo kibir bawgay ninka ajooniyo ilaahay u baahan markasta ilaahay weyn u baahanay oo waqtigii ay ugu cusleeyeen in la toobad keenay ahayd in waxaan diinta islaamka waafaqsanayn la keenay arrintaas arrin foolxun weey waxaan u leenahay dalkeena u dan maaha dad badan baa idinka haajiri doona hataa wax aan saxsan anagu marka waxaan leenahay war arrinta laga hubsado haleyniga celiyo inaga inama xukunto nimanka la yiraahdo gaalada iyo reer Yurub iyo Mareykan inagu dad islaam baynunay islaamnimadeenu ma ogola ma ogi anigu ama ma garanayo imka qof Soomaaliland jooga oo u baahan lacag riba hadii la baaranayaan la helay ma filaya de waxa aynaan uga baahnayn waxa loo keenayana waa arrin la yaab leh marka arrinta waxaan leenahay dawladda madaxweynuhu weyn Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa la yiraahdaa cimrigaaga oo raagay ceeb laguma sagootiyo waxaan anigu u bedelayaa cimrigaaga oo raagay cadaab laguma sagootiyo madaxweynaha waxaan leeyahay aakhir al-cimri baatay waqtigii lagu doortayna wax yar baa ka hadhay inta lagu kordhiyay intii hore oo dhan de wax ribo maan araga maanta cadaab arrintaasi adiga ku saaran tahay arrinta waxaan leeyahay baarlamaanka wadana iyana waxaan leeyahay rag waaweyn oo siiraanyaba ka waaweyn oo qaylinayaan arkay meeshu ku hordayay garan maayo waa cadaab meeshu ku hordaya ilaahay hal laga baqo anagu ay iyo dhibaato iyo ceeb kale keenmayna laakiin waxaan leenahay waa rag waaweyn oo dooranayo ilaahay ka baqo waxaan umadiina una danahayn idinkana idintan ahayn joojiya qodob waa ka qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye magaalada imarka waxa ka socota gulaad waxaan amaanaya
golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa oo runtii hawl wanaagsan qabtay imaka bishan u dambeeyay oo sameeyay wadadii madaarka gabagabana ay ku dhowdahay waxa weeye ninka madaxda waxa weeye waxa uu wanaajiyana waa in loogu mahadnaqo waxa uu xumeeyana waa in loo sheego sida ay wax ku hagaagayaan waa sida marka waxaan leeyahay dhaliishii dawladda waan iga sheegayo in aanay arintaas meesha laagayn waliba lagu toonsay dawladda wixii ay qabatayna waa iyadana waa amaanteeda waa sheegaynaa golaha deegaanka oo maayirku weyn yahay arrin wanaagsan baa qabateen waxa weeye dhaliil waxaan arkayaa dad badan oo haddana caytamayo oo matalan deegaankan ay wadadu marayso waa deegaanka anigu aan odayga rag dadka aan odayga ahay ka soo jeeda waxa qurux badneyd maayirkuna in badan buu nala hadlo ganacsatada dadkayga la hadlo wax ku soo dara waanu ka gowsadeegnay waxay haddaanu ka gowsadeegno waxba ku dari weynay inaanu dee u mahadnaqina meesha kama muuqdo marka maayirka iyo golaha deegaanka waxaan leeyahay dadkan idinka madaxa dadkeenuna madaxda ma jecla waxa inta badan madaxda ay dhaliishun bay jeceliin inay sheegaan laakiin wanaaga ma sheegaan ha ku niyad jabina wax wanaagsan baa qabateen anigu waxaan ahaa odayaashii maalintii madaarka la furayay ka hadlay madaxweynaha iyo dawladda waxaan ka codsaday madaarkii waa arratirteenay laakiin wadada marka la soo maro wadadii ma arratirnay wadadana arratira ilaahay ma hadii wadadan iyana waa la arratiray wax weyn baa la qabtay golii deegaanka idinka horreeyay sanadii u dambeeyay ay meesha ka tagayeen ay iyagu bax qabteen oo wadooyinka inta badan sameeyeen waxaan idinku dhiiri gelinayaa waxa aad sameyseen waa wax weyn oo aad sameyseen inta idin hadhay waqtiga idinka hadhayna wada dadkana ha dhageysanina dadka deegaankana waxaan leeyahay aan odayga ka hayna waxaan leeyahay haddii dawladda naga codsatay waxaan la qabano imaka wadooyin baynu dhisnay dad badan waxaan arkay ku doodayo le wadadani waa wadadii dawladda ay xaq u lahayd wadada salaxley bayna dhisto dawladda xaq u lahayd innagana 3 meelood oo laba dhisnay maceeb baynu ka qaadnay mise wanaag baynu ka qaadnay waxay ila tahay inaan madaxda markay wax qabatana loo mahadnaqo oo la amaano marka ay wax xumaysana loo sheego oo si asluub loogu sheego taana intaasaan ku dhaafayaa qodob saddexaad baan ka hadlayaa waxaan maalmahanba maqlaayay waxaa la bilaabayaa batroolkii baadhistiisii sahmintiisii oo aagga salaxlayna soo gelaysa dad badan oo dabeedna si khaldan wuxuu sheegayaan arkay anigu waxaan ka mid ahaa odayaashii ay wasaaradda macdinta iyo biyo u yeedhay waxa meeshaasi waa sahamintana lacag cid iskuma siiso dadka ka hadlaya waa 3 qolo waxay moodayaan in meesha lacag lagu qaadanayo ma anigana la soo gaarsiiyay weeleyno waxa ka hadlinaya guri qolona waxay jecel yihiin wax walba in iyaga loo dhiibo haddii qof kale oo isla inaadirkii loo dhiibo waxa ay istakaasi inuu wax ka helayo yaxa ku jira nooc min waxaan anigu fahmayn dadna waa iska horday gurdan raaciso waxba warama hayaan waxaan leeyahay ninkii meesha guri galiyo meesha guri kuma jiro waxa la sheegay waqtigii Sacuudiga la baadhayay shidaalkiisa iyagoo baqtiyay Mareykanku yimid waxay ku leeshiyeen 5% in Sacuudigu qaato hadda waa markii la qoday waliba la helay baalka 5% iyo 70 shirkadu qaato